dowladda Turkiga oo madfac aanu filayn Yahuudda iyo Mareykanku mar kale kula dul dhacday dowladda Spain oo maanta iyaduna soo hadashay madaxda ugu sareysay axsaabta kala duwan ee mucaaradka ee maamulka Yahuudda oo maanta laga celcelinayo Netanyahu laga celcelinaya bin Ghafiir oo mar kale isaguna fariin aanu filayn Netanyahu hawada u soo mariyay sheekadan wali ma dhaw assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waadin salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan oo walaalkiin Cabdullaahi Macal Xuseen warajeenaya anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigan uu mar kale dib inoo kulansiiyay isaga iyo mahadaasi oo idil u sugnaatay inta dibana Allah ka dulqaado inta isugu toosantayna Allah u barakeeyo nabigeena kaleey salaatu wasalaamna aan ku wada salano muuqaalkan muhiim u dhamaanteen wada yahay waan rajeenayaa inaan meel dheer wada gaarsiin doono aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada aadiyaad walaalayaal sida hordhaca barnaamijkayga baa ku soo aragteen waxa la socotaan wali inay jiitamayso islaafsigii maxaabiista iyo xabad joojintii hanjabaadihii hawada ay soo marinayeen jamaahiirta Xamaas iyo maamulka Yahuudda Mareykanka oo ducdiisa asagana ka wato hase ahaatee arintaas maanta waji kale ayay yeelatay wajiga ay yeelatay baad isweydiinaysaa waxaan ku bilaabaynaa dhanka Yahuudda maanta ku bilaabaynaa dhinaca Yahuudda ayaa maanta ku bilaabaynaa horjoogaha isbahaysiga mucaaridiinta ee maamulka Yahuudda ayaa waxa uu la hadlay shacabkii reer Yahuudeed la hadlay wuxuu yiri Netanyahu waxa uu meesha ku hayo waa ruwaayad uu doonayo kursi dherer iyo cimriga kursigiisa inuu sii dheeraado wuxuu leeyahay Netanyahu wuxuu ballan qaaday in Xamaas uu gabi ahaanba inta dagaalka dhulka infantryga ah ee ciidamada maamulku ay ku soo galeen marika Gaza in gabi ahaanba Xamaas uu tirtiri doono ballanqaadka waa wada ogaydeen in Gaza waa qiiqday guriyihii dhulka la simay dadkii eber baa laga siiyay 50,000 oo qof dadka badan baa la laayay dad baa ilaa ay hadeertaan laga shakisan yahay inay burburkii iyo guriyihii dumay ku hoos jiraan malaayiin dad aba barakacay waa la socotaan idinkaga sheekeen maayo laakiin Xamaas wali hawlgaladeedii ayay sii wadataa oo gacan ku haynta marika Gazana Xamaas ayuu gacanta ugu jiraa taas marka waxay tusinaysaa tabardarida iyo fashilka maamulka Yahuudda kaga yimid dagaalkii dhulka ah ee Xamaas uu la galay taasna waxay sababtay Yahuuddu in maanta ay wajahdo xaalad aanay weligeed hore u wajihin oo taariikh xumo ah waa mucaaradka waa ninka ugu weyn isbahaysiga mucaaradka ee maamulka Yahuudda ninka nooca u hadlayo waayah sidoo kale ninkan isagana waa mid kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil wuxuu taagan yahay ma sii jiri doonto hal mar oo kale Xamaas haddii ay soo ruqansato waayo 7 bishii Oktoobar wixii nagu dhacay baan ogeyn Soomaa ragga ugu muhiimsan ee saraakiisha ee maanta Xamaas gacanta ugu jiro rag naga go'aamiya waa ma jirto saas ay tahay naas nuujintii baa wali socotee hal mar oo kale haday Xamaas soo ruqansato oo dhankan u soo dhaqaaqdo waxaan idin sheegayaa buu taagan yahay Yahuudi inaysan jiri doonin waa ninka idin muuqdo waa mid kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee maamulka Yahuudda bin Ghafiir ayaa isaguna soo hadlay waa wasiirkii hore ee amniga ee maamulka Yahuudda oo isaguna qoliyahan mucaaradka hadda qayb ka ah laakiin xukuumaddu ay mar walba jeceshahay inuu dib ugu soo laabto oo xukunka maamulka uu dhinac ka qabto taasoo runtii isaguna uu xujo ogaga dhigay haddii ciidamada maamulka Yahuuddu ay dib ugu laabtaan marinka Gaza aniguna xukuumadda waan ku soo laabanaya wararkiisii hore toddobaadkii la soo dhaafay ayay qayb ka ahaayeen khudbadaha uu soo jeedinay wuxuu leeyahay maanta heshiisyadan lala galay Xamaas ee isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojintan Xamaas lala galayo wuxuu leeyahay waa qar iska tuurnimadaasuna waxay naas nuujinaysaa buu taagan yahay jamaahiirta naas nuujinaysaa hadday sheekadu sidan ku sii socotana waxa dhici doonta buu taagan yahay in weeraro isnadaamin ah ay ka dhacaan gudaha maamulka Yahuudda dhexdeeda hebel baa naftiisa isqarxiyay gaari uu watay hebel qarxay baa dhici doonta uu leeyahay haddii hadartaan aan laga hortagin intaasoo dhan waxay la wada hadlayaan waa shacabka maamulka Yahuudda taasoo runtii ay uga jeedaan in maamulkan hadartaan xukunka haya ee Yahuudkan weyn uu hogaaminayo in gabi ahaanba uu ku fashilmay dagaaladii uu ku tilmaamay xoreynta deegaanada Yahuudda isla markaasina uu ku soo qaban doono gabi ahaanba jamaahiirta marika Gazana Yahuudda loo hosgeen doono wixii oo dhan buu ku fashilmay bay taagan yihiin waaya ninkan odayga oo asagana ilmihiisa iyo islaantiisa ooynaya dusha ay ka wada saaran yihiin wuxuu kamid ahaan jiray golihii dagaalka maamulka Yahuudda u qaabilsanaa ee hore ayuu kamid ahaan jiray raggii talada looga dambeeyay uu kamid ahaan jiray wuxuu kamid ahaan jiray raggii maamulka Yahuuddu talada u daba fariisan jireen ayuu kamid ahaan jiray marka waxa uu leeyahay haddii aanan isbedel ku sameynin nidaamka hogaamineed ee maamulka Yahuudda hadday ahaan leed dhanka askarta saraakiisha ciidamada hogaaminaya dhanka amniga dhanka madaxda ugu sareysa ee macnaha golaha cabinetka
waxaasoo dhan haddii aanan isbeddel ku sameynin suurtagal ma noqon doonto oo shacabkeenna uma damaanad qaadi karno si xorriyad aynay deegaanadooda ugu noolaadaan mana ballan qaadi karno in ciidamadanada iyo maamulkanagana uu guulaysto halkaas marka maxaa ka soo baxay in nimankii mucaaridka ahaa laftirkoodu nafta ay isag dhigeen oo quus ay taagan yihiin waayo arrimo kale oo nuxnux abaa jira arrimo kale oo nuxnux maxay ka jiraan mataqaanaa dowladdan waxay taagan tahay ma dhici doonto mana lagu hanjabi karo shacabka reer Falastiin xoog inta lagu soo raro deegaankiina la keenaya mana lagu hanjabi karo haddii tan wada hadalkan ay ka baxdo maamulka Yuhuudda jihooyin fara badan baa furmi doona oo u suurtagelinaysa jamaahiirta in maamulka Yuhuudda ay ka weeraraan taasaa marka sababtay xitaa nimankii mucaaridka ah oohinta inay qayb ka noqdaan oo Netanyahu la ooyaan albaabada intay xirtaan inta markaan Yuhuudda kaga soo gudbo wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa iyaduna dhambaal hanjabaad ah oo Mareykankii iyo wadamadii gabarada gaaban la daba socday maamulka Yuhuudda madaxa weerarisay hawada u soo marisay haddaba ila ku dhow sirdoonka ugu sareeya baa waxay soo warinayaan Netanyahu horeyna u sheegay isaga laftirkiisu laakiin ila kale oo sirdoon baa waxay sheegayaan Netanyahu inuu damacsan yahay askariga ama qofka ugu dambeeya ee Xamaas gacanta ugu jiray Yuhuudda marka la soo daayo maalinta ku xigta inuu qorsheenayo in weerar aanu cidna kala tashan ku qaadi doono mar kale Mareykanka Gaza waxay leeyihiin damaanad waxaan u haysanaa markan hal shakhsi meed ba Allah ka dhigay dhanka Yuhuudda ah inuusan naga jirin dhinaca Xamaas waxayna noo suurtagelin doontaa hubkii ayaan dhaweeto tunelada in lagu weeraro loogu talagalay ee Mareykanku soo dhiibayay ay noo suurtagelin doonaan inaan meel walba madfac la dhacno markii hore cabsi baan haysay oo waxaan islahayn haddii aad meel walba xabadda la gashaan ama dadkii maxaabiista ah idinka maqnaa meesha ay ku basbeelaan ayaguna ku dhamaadaan maanta laakiin waxay leeyihiin kalsooni baan qabnaa ah in hal shakhsi oo kamid ah maxay ahayd shacabka ama askarta maamulka Yuhuudda inuusan Xamaas gacanta ugu jirin taa marka waxay noo sahlaysaa askariga ugu dambeeya ama qofka ugu dambeeya ee Xamaas gacanta ugu jiro markii la soo wareejiyo maalinta ku xigto in weerar ay qaadi doonaan arrintaas la soo warinaya taas markii maxay sababtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Turkigu maanta ay ku weerartay Mareykanka oo ay sheegtay soo jeedinta Trump ee ku aadan ama ku saabsan barakicinta Falastiiniyiinta ee Mareykanka Gaza laga barakiciyo ma la aqbali doono mid aan aqbali doono ma aha sidoo kale waxay leeyihiin waxa jira ila wareedii aan helnay taasoo runtii cabsi iyo walaac laga qabo in Netanyahu uu dib u bilaabo dagaalka Mareykanka Gaza kadib markii uu helo maxay to dhammaan la haystayaasha maxaabiista Xamaas gacanta ugu jira guud ahaan markii xagga loo wareejiyo waxa laga cabsi iyo walaac badan qaba in Netanyahu mar kale uu dagaalka Mareykanka Gaza dib u soo bilaabo oo markaasi uu noqdo runtii dagaalkan mid ka sii laba jibaaran kii hore ee 15 bilood la soo dhaafay shacabka reer Falastiin ay la daala dhacayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga sidoo kale waxa ay sheegtay taas waxa noo xaqiijiyay hadallada Netanyahu ee dhawaan soo baxay ayaa xaqiijinaya in Yuhuuddu aysan aaminsanayn in la helo xal laba dowladood ah balse ay aaminsan tahay in weeraradan ciidamada Yuhuuddu ay wadaan in la sii ballaariyo oo lagu ballaariyo gobolka macnaha barigan dhexe oo dhan lagu ballaariyo hadday Suuriya xoogaa ka soo goosan lahaayeen Lebanon ay qayb ka goostaan Urdun ay qayb ka goostaan meelo badan ay la soo go'aan oo xoog ku qabsadaan waxay leeyihiin annagu ma ku kalsooni qabno ma aaminsanin in la dhiso dowlad ay Falastiin leedahay oo cageeda isku taagto caasimadeedu ay tahay Qudus ma aaminsanin mana aqbali doono laakiin haddii weerarka uu sii ballaarto oo Yuhuuddu sida hadda ay damacsantaa ay waxaan sii ballaariyaan shacabka reer Suuriya ma aqbali doonaan deegaanadooda in Yuhuudi ay qabsato oo ay ku sii noolaato taa marka maxay horseedi doontaa in wadamadan bariga dhexe ay noqdaan kuwa bahal galeen ah oo markaasi dagaal la diris noqda arrintaas runtii waxay leeyihiin saameyn badan ayay yeelan doontaa laakiin inta aanay saameynta yeelanin ka hor waxa caalamka waajib ka saaran yahay in arrinta Netanyahu iyo damaciisa ballaarinta qabsashada deegaanada ee uu damacsan yahay in hadeertaan laga qabto laga hortago biyo intaysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga aad iyo aad marka anu waxa idinku soo celinaa mar kale hadalkii Trump ee ahaa shacabka reer Falastiin Mareykanka Gaza ka barakacaan in ay mideysay dowladaha muslimiinta iyo wadamada Carabeed intaas ay idin sheegaya si kastaba war jiraaba cakaaro imaan doonaaye maanta xaal halkaas ayuu marayaa oo ninkii Netanyahu ahaa dharbaaxshada ku socoto mid la soo koobi kara maaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga rajaynaynaa sidaa hadeertaan
ay yuhuuddu dhexdooda u kala tafaaruruqday oo gambarada u kala qaadatay oo ninba ninka kale uga shakisan yahay oo loo kala boodsan yahay rabbigaan inuu sidaa shakiga iyo tashwiishkaas iyo buuqa ku furan in rabbigaan u sii siyaadiyo ayaan weydiisanaynaa biidnillahi alkariim bil ramadaan baa fooda inagu soo hayso maalmo iyo wadi u naga xigaaye ducooyinkayaanan ilaabin oo dadkaas reer falastiin ee masaakiinta ah aan la garab istaagno biidnillahi alkariim aad baa u mahadsantihin walaalayaal muuqaalkaa baan doonaya inaan idinla wadaago inta aan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu